أكون معه دخول السعودية أكون ها عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام دمان أنت ماشي جوكت أنا جو فرح سنة أودن كي كسر لابتي سيدا وجه دامبا خيب لي واحد عك قاتي دولة ما شاء الله وقوم دعينا مشان يقاسة أمباستور كنا أولياء خير الله سيو أنت صوب بلاد سنة لجوجي أنت صوب بلاد سنة نجور هاي أنت صوب بلاد سنة ماشي نجو هاي إيران وحن كسب حنا حبسي سنة ديو سدح بلاد كل حرنين ما شاء الله عندنا وحن جوجنا ودن كنا كل لما سو كوي كر فرح دينا ودريم كرتين قف ودن شيء وكل حرنا عندنا وحن كفرح سنة أنا ودن كي ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيب ومنى عبد أحمد وحن كمدة هاي محابيستي لغا سو داية إيران وأمباستور أولي سو داية وكفر حسنا ما أنت ومالين لغو قالي ودن كي عندي بوغو سو نقضي الحمد لله الشكر دولة دي الصومالية وأمها علنا قارهان مدحوينها الصومالية مدحوين فرماجو يو أنت دولة كتيرسن IOM دمان أمد الصوماليات قولي قبنمو magacaygu waa deeq maxamed cali hal san iyo 3 bilood baan ku xirnaa dalka Iran 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan corona awgiis aan waxay yirnaa dalka Iran maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dareenkayga mid la soo koobi kara maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday Xasan Cali Khayre oo ii soo diray ambassador Maxamed Xuseen Awliyo dadweyne oo in badan naguna xanibnaa dalka Iran maanta dareenkii mid la soo koobi kara ma aha in badan 6 bilood iyo 8 maalmood inta falaad aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara ma aysan ahayn laakiin maanta dareenkii mid la soo koobi kara ma aad baan ugu faraxsanahay imaanti kan imaanay dalkeena hooyo sababaha ugu baxnay wali dalkii waa taagan tahay arrimihii waxaan rajayn doonaa insha Allah inay xukuumadeena isbedel weyn noo muujiso si fiican noo soo dhaweeyso insha Allah aydan waxaan u nahay maxaa la jiray maanta mar haddii ay xukuumadeena tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan insha Allah